السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، رمضان مبارك. كسو دواada youtube channelka Zaki Adam. waxaan mahad u sugnaatay Allah subhanahu wa ta'ala. marka xigta waxaan maad celinayaa dhamaan asxaabta ku xiran youtube channelka ay inta daawanaysa. waxaa idin wadaa muuqaal oo ka kooban malawax iyo sidoo kale wixii lagu cuni lahaay iyo shurbad aad u fudud. Soo jeedin hilib geel ayaan soo jarjartay, saliidda markay soo kululaatay waa ku soo shubtay, kadibna daboolka u dhiibay. dhanka kale waxaan saartay shurbadii mishaarida caadiga ah oo isku dardarka ah oo bariiska iyo baastada iyo qamadiga iyo maxaa la yiraahdaa looska iyo waxyaabahaas laga sameeyo la isku dardaro ayaan ka sameysanayaa. 4 qaada cabirtay biyo caadi ah ku soo qasay, waa sida labaniyada kale dabcan. biyihii kale markay xoogaa ii soo qandaceenna waa ku soo shubtay. kadib markii ay soo bislaatay oo xoogaa ay degtay meeshii marka hore ay taagneed hadda waa dareemaysay way kala culus tahay. waxyaabihii culayska ah korka ka saarnaa qolofta ka dajiyay. kadibna waxaan soo shiitay hilib geel oo aan ku soo shiibtay toon iyo sidoo kale kabsar. cusbo yarna waa ku soo darsaday. waxaa sameyn doonaa marka waa laba daboolka u dhiibaa, dab yariisna waa saara, yani dab dhuxul burjika isticmaala dabcan waa fahmaysiin aniga. gaas da isticmaalaysidna waa u gaabinaysaa, gaaska meesha ugu hooseysa ka dhigaysaa si yani ay dhuuxa isaga galaan. meeshaas warkeedu ku xiran yahay. meeshan waxaa ku soo darsaday haddana karooto oo aan soo jajaray qaab yar yar, wax biyo kuma daraayay. karootada markay soo bislaataan ku soo huuriyay, haddana waxaan ku daray baradho. waxaa iga maqnaa marka bocor cadde oo si yar loo soo jajaray qaybta miraha dhaxda in laga bixiyo. dabcan anima aanan haysanin, qofkii haysta laakiin ha tijaabiyo. wuxuu noqonaa yani hilibka qudaarta waxa dhan colorful isku noqonayaan, sababtoo baradhada waa jaalo, karootada waa orange, hilibka midabkiisa guduud noqonaa, barbarooniga iyo basashi, bocor caddihi oo asagana xoogaa green ama cagaar ku jiro. maasha Allah qurux ku soo baxaa, wana macaanaanaya. mid kale ay idin raaciyo hilibka dhowr jeer biyo ku soo daray ilaa uu ka bislaado. halka mar aan saaray ma uusan ku bislaanin, dhowr jeer 4 jeer oo maleena ama 5 jeer in taan ku soo daray biyo aad u bislaado u mutahay. soo qaandama gelinaya hadda saa u jeedin, hadii kale wuu iga jajabaa, ma fahanteen. meeshaas uu hilibka yani sheekadiisu ku soo dhamaatay. waxaa ka sameeyay bur, ukun, caano booro, wax yar oo cusbo ah, wax yar oo sokor ah iyo heel. balse ani heel kuma aanan darsanin maanta, waayo degdega igu jiray. intaas kale taa iga badan. intii isku qasay xoogaa bibiya laga dhigaa, dabcan qof walba inuu ka fahansan yahay rajeynaya malawaxa sida loo sameeyo. qaabkan anigu dubanaya, qaabka canjeeradan waa u duban kartaa. dabkan nuxuus iga ahay wallahi, wax duubis iyo afur diyaaris iyo subhanallah xanuunkeeda leedahay. si kastay ahaatabo muuqaalkan adinka idinkugu talagalay. shurbadiina meesheedii ku soo taqtaqaysaa. meeshaan aniga waxa ku diyaarsanayaa malawaxeygii, alaabti kala dhan waa diyaarsaday. cabitaanka cambow ii ahay maalintan. soo muuqaalkan waa maalintii ugu horeysay ee ramadaanka uu ahaa. maxaa degdeg igu jira, xataa waxaa dareemaysaa in burkuus oo iga yeeshay, maxaa la kuuskuus inuu iga yeeshay burka degdega igu jiray. by the way muuqaalka intaas uu ku egyahay. hilibkaas khudaarta la socdo iyo malawaxaaga isku ogow. soon ha ahaato, soon yeesan ahaanin. maasha Allah gaaliska arag saliidan aad iskaga yareynay mar walba oo aad gidinayo malawaxa. faynuusteeda yareeda soo daartay war ma jiro. meeshaas wixii lagu cuni lahaa shurbadii adduunku soo diyaarsaday. cusbadana iskaga yareey. baash sababtoo hilibka geelka asaga cusbo leh, cusbo kale taa ugu darin adine. waa ka samaano salaatadeedii malawaxeygii qofba nooca uu soo sameeyay. qof oo soo duuduubay, qof waxa uga soo dhigay qaabsan buus camal, qof asoo fidsana maxal jir kor ooga shubay qudaarta. muuqaal midna ku kulmi doono waa walaashin Zaki Adam oo idin leh Ramadan Kareem. ilaahay caafimaad iyo bashbash noogu dhameeyo ramadaanka kalena Allah nagu gaarsiiyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.